mid ka mid ahaa sirdoonka milatariga Mareykanka ayaa gacan ka geysanaya la dagaalanka mid ka mid ah kooxaha argagixisada ugu daran ee Afrika. Waxa uu khibrad u leeyahay isticmaalka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska. haddana waxa uu uga faa'iideynayaa Soomaaliya buri si uu la dagaalamo kooxda argagixisada ah ee ku xidhan Al-Qaacida. baqdinta qaraxyada aan la filayn waa mid mar walba joogto ah. Al-Shabaab waxay ka mid tahay ururada mintidiinta ah ee hubeysan kuwa ugu awood badan. Al-Shabaab kama taliso magaalada Muqdisho, balse wali waxay u geysataa waxyeello ba'an iyagoo isticmaalaya waxyaabaha qarxa. hubka ay ugu jecel yihiin waa baabuurta qaraxa lagu rakibo sida kii ay 14 Oktoobar ku laayeen dad ka badan 500 oo qof. waxaa la aaminsan yahay inay Al-Shabaab ku leeyihiin indho iyo dhago meel walba oo ay dadka rayidka ahi ay ku dhex dhuuntaan. jidadkan jawigoodu degan yahay uma muuqato inay khatari ka jirto, balse ilbiriqsi gudahood ayay isku bedeli kartaa. Barrett Villakovich oo ka tirsanaa ciidanka sirdoonka Mareykanka ayaa raba inuu wax ka bedelo arrintan. wuxuu booliska Muqdisho siiyey diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, wuxuuna barayaa sidii ay u isticmaali lahaayeen tiknoolajiyadda. marka ay Al-Shabaab ka sifaynayaan goobaha ay haystaan, waxa ay isticmaali karaan diyaaradahan yaryar si ay uga taxadaraan qaraxyada jidadka ku aasan. waxaa xeeladaha Al-Shabaab ka mid ah inay hal bambo qarxiyaan oo ay mid labaadna la sugaan gargaarayaasha. booliisku diyaaradaha yaryar ayay ku hubin karaan khatarta goobta ka hor inta aan loo dirin gargaarayaasha. ciidamada sirdoonka Soomaaliya ayaa inoo sheegay in Al-Shabaab ay ku dadaalayaan samaynta qaraxyo tijaabo ah. sida aad muuqaalkan uga jeedaan, Al-Shabaab waxa ay qarax ku baroobeynayaan ciidamada AMISOM. ka waran haddii aad ku sii fool leedahay goob aadan ogeyn dadka joogaa waxa ay ku hubaysan yihiin ama inay haystaan walxa qarxa. haddiise aad kor ka sii arki karto hubka ay haystaan, waad ogaan karaysaa khatarta goobtaa kaaga horraysa. diyaaradahan duuliye la'aanta ah waxay door ka qaadanayaan ka hortagga weeraradan. waxaa sii badanaysa khatarta qaraxyada Al-Shabaab. diyaaradahan yaryar ee aan duuliyaha lahayn waxay gacan weyn ka siin karaan ciidamada Soomaaliya ee awoodoodu liidato la dagaalanka argagixisada.